waxayna bilaabayaan waxaa ku mashquulsan film qaadayaasha salaanta ayay saareen sad arkaysaan dhawaqooda waa mid farxad gelinaya ummadda Soomaaliyeed shacabka ayaa u masxaradaya sad arkaysaan ciidamada waxaana soo jiitay sida ay u tababaran yihiin ee isula haystaan taasi oo moral ahaan iyo jir ahaanba ka muuqata inay yihiin ciidamo dhisan oo waqti badan la geliyay ciidamada xoogga dalka ayay ku dhawaaqayaan magacooda waa tababar cajiib ah sida ka muuqata ciidamadan waxaa la geliyay waqti badan waxayna u carbisan yihiin sida looga hortago cadowga nooc kasta uu yahayna la isaga difaaco waa tababar cajiib ah sida la isaga difaaco adoonan ku badinin ayay markaas soo bandhigayaan cadow kasta oo ku soo wajaha iyo xilli kasta oo uu ku soo wajaha laba ayay noo soo bandhigayaan hababka kala duwan ee looga hortago hambalyo ayaan leenahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 43aad qaybta 43aad ee jaamacadda magaalada Kismaayo waa qaybta 43aad guutada 12aad ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sida tuuga la isaga difaaco ayay soo bandhigeen waxaa soo bilaabay ama soo bilaabatay munaasabadii si toos ah waxaana ciidamada ay socdaan ay marayaan halkan oo
oo ah jaamacadda magaalada Kismaayo qaybta 43aad guutada 12aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo maanta u dabaaldegaya sanad guuradooda oo ku beegan 12ka bishan Abriil. waxaa ugu horeeya kooxaha baanda muusigada oo ay u tumaya kuwaasi oo ku labisan dareeska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. waxaa ku xiga oo arkaysaan sida ay ciidamada u kala horeeyaan ciidamada gacanta sida calanka Soomaaliya oo markaasi ah kan ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay fiirsanayso. waxaana ciidamadani ay yihiin kuwa maanta dhigaya wacdaro ku saabsan munaasabadan. waxaana ku xiga seefta iyo xamidige waxaa ka socda saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. maanta maalintooda iyana ay dhigaan munaasabadan. waxaa daawanaya oo ku sugan halkan madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana sidoo kale ku sugan halkan. jaanta sida ay isula helayaan ama lugta ayaa ah wax cajiiba, iyo sidoo kale dareeska ay qabaan oo ah mid ay ku idogsato ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. waxay munaasabadan maanta ka dhacaysaa guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan. qaybtanna waa qaybta Jubbaland oo ah qaybta 43aad guutada 12aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. kooxda baanda muusiga baanda muusiga ayaa salaada saaraysa. waxaana u soo xaaji maxamuud luga dheere cadqadir sudan xaaji maxamuud luga dheere ayaa salaanta ay u saareen ciidamadu. waxaana markaan bilaabaysa salaanta inay ciidamadu saarayaan madaxda daawanaysa ee maanta munaasabadan ka soo qayb gashay. ummadda Soomaaliyeed ayay u tahay farxad inay arkaan ciidamadooda oo dibadda ku socda, kuwaasi oo u diyaarsan in cadowga Soomaaliyeed ay ka dhacayaan ummadda si nabadgelyo iyo horumar ku noolaato. labiska siday u diyaarsan yihiin ayaa wax cajiiba. saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee juhdigan bixisay ayaa si weyn ugu faraxsan. ciidamada ka qaadanaya taasi oo ay ka dambeeyaan haweenka Soomaaliyeed oo iyagu markaas ag taagan ciidamada Soomaaliyeed isla markaasina u sabcinaysa hogaaminaysa. waxayna salaanta u saarayaan dhinaca bidix oo ay taagan yihiin madaxda say u diyaarsan yihiin ciidamadooda arkaysaan. waxaana ay farxad gelinaysaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed in ay daawadaan munaasabadan oo kale. bahda warbaahinta ayaa ku mashquulsan in ay duubaan siday u diyaarsan yihiin aad arkaysaan oo ay lugta isula helayaan ciidamadan, kuwaasi oo ah kuwo ay ummadda Soomaaliyeed ka dhursugayso inay qabtaan shaqooyinka ama ay ka qabtaan cadow kasta oo hagardaaminaya ummadda Soomaaliyeed. waxay maanta u diyaarsan yihiin ciidamadan in ay naftooda u huraan ummadda Soomaaliyeed si ay nabadgelyo u hesho. Jubbaland ayaana qayb ka ahayd dhismaha ciidamadan juhdiga la geliyey iyadoo saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybta 43aad ee guutada 12aadna ay ku bixiyeen juhdi
la taaban karo oo ah dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Saraakiisha ayaan u carbiyay ciidamadan inay noqdaan kuwo tahay ugu soo bandhiga ayadoo munaasabadan aysan ahayn mid ka dhacayso kaliya Kismaayo laakiin ay tahay gudahaan dalka Soomaaliya oo dhan ayay ka dhacaysaa. waxaa goor soo bilaaban doona gaadiidka ciidamadu ay leeyihiin taasi waa asaguna maanta qayb ka ah munaasabadda. soo bilaabmay gaadiidka oo arkaysaan in salaanta ay u saareen madaxda Soomaaliyeed ee halkan ku sugan sida u diyaarsan yihiin ayaa si cajiib ah waana munaasabad runtii farxad gelisa ummadda Soomaaliyeed halkaasoo ay joogto in ay mar kale arkaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo niyad sami iyo moraal mar kale dib ugu soo laabtay hambaliyo meel kastoo aad joogtaan saraakiisha ciidamada saraakiil xigeenada iyo sidoo kale xaafadaha iyo dadleyda waxaana sidoo kale leenahay Allah uga baryaynaa in uu u naxariisto inta nafta u hurtay badbaadinta ummadda Soomaaliyeed. waxaa maraya weli gaadiidka ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybta 43aad guutada 12aad ee jaamacadda magaalada Kismaayo. calankeenu waa cirkoo kale ayay ku garaacayaan heesta muusiga waxaysa ee kooxda baanda muusigada. balyo ayaan leenahay saad u muuqataa heesada weli kuma jooga gaadiidku oo wax ay ku faraxdo ummadda Soomaaliyeed sida ay u diyaarsan yihiin ay maanta ugu soo bandhigeen ciidamadan tuska. aad ka daawanaysaa Jubbaland TV waxaana kaamirmanada uu ka mid yahay Cabdiqaadir ay yihiin kuwa gacanta ku haya muuqaalada quruxda badan ee kaga imaanaya jaamacadda magaalada Kismaayo oo ah halka ay ka dhacaysa xafladan 12 Abriil oo ah maalin u aasaasan ciidamada xoogga dalka. dalka Soomaaliya oo runtii ah mid muujinaysa soo kabashada iyo dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. markaasi u tumayaan muusiga waxaa ila taagan saaxiibkay Cabdisaaq Afrika oo ka mid ah shaqaalaha warbaahinta Jubbaland. maanta waxaad ku sugan tahay magaalada Kismaayo ka waran dareenkaaga iyo saad u aragto kugu horeysay oo Kismaayo kaga qayb gasho munaasabadda 12 Abriil oo dalka Soomaaliya ee qarankeena maamul goboleedyo ama qaran ama maamul goboleed aan dhaho oo maartay dawlad dhisan ciidankeedu socdo ama caalamka taagan yahay oo aan arko saan ka soo qayb galo maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo ummadda Soomaaliyeed inaan filayaa in warbaahinta Jubbaland ama radio Kismaayo ama TV-ga ay bulshada ka wada doonaan. aad u mahadsantahay daawadayaal waxaad daawanaysaan munaasabadda oo ka dhacaysa jaamacadda magaalada Kismaayo oo halka ay degan yihiin qaybta 43aad ee ciidamada dalka Soomaaliya guutada 12aad. waxaa salaanta ka qaadanaya mas'uuliyiinta ugu horeeya madaxweyne kiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo maanta aanu kala harin munaasabadan in ay u dhacdo sida ugu quruxda badan. sida ay isku heleen gaardiga ayaa si cajiib ah. hablaha Soomaaliyeed ayaa ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo lagu yaqaan inay yihiin kuwa karti u leh in ay mar kasta muujiyaan dadnimadooda. waxaana maanta ii muuqanaya inay ku jiraan ciidamadan sida quruxda badan u tababaran ee soo bandhigaya gaadiidka ciyaarka hablo Soomaaliyeed oo ka qayb qaadanaya difaaca ciidamada waa difaaca dalka hooyo.
hoyalaye 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 hoye hoyalaye 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 hoye أحمد ورنا رصدي هذا وصدوني وشبيرهن هبينكي سعدي هدولا ورديسي ونهيلادي لينا صقدحي هدية ليسيي ومركياني رابتي يقيان هبي وساحدي ويسكارسينتانان هايسانية هالوضو شكتي ويسو هرقينيسي BBC دي حاليتاهو كيبال اي وريا يالا اسكوهو وكاله فايني ورقانو سنسو تبيني هولادين نادوي همباليا اينا صدرين قاريسكو هالليلي وهواويga la soo raaciyo aynu ku hadlaynay way hawadu ila keentay iyo leedhayaan hooye oo waxaan helayaa magii hurdaysnaan jiray hoos fadhiyay geedka ee raas casayrka hiraagay iyo hiriyo kamboni ee habaaska lagu dhaafi jiray hogashadii daaye wardahu hululiyo ku jiray hayjadoodanahe oo cidla lagu horaynaya iyo hoy qaanin badane way hareeraha ka taagnaan jirayay hulabanuye dhaha abaar loo hoojiyoy ku hafinayeene oo haylaama la soo xidhayuhu wadesaane hoy keligii halaan beedu ay la hordofayeen bahaladii ayay ku hayayee uu harka turayey weerkii humballayn jireen halistaan modaynay hulhudkii hamaansiga ku dilay soo lili waaye halaqiyo haraydii doraad xinuu hurufayey hambasayadii guuxay iyo hadhaashabelkiye husbuu yidhi hariiryaalihii haystay loo yahaye sanad guuradii 57 ee 12 abriil asaaskii xoogga dalka Soomaaliyeed waxa weeye dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan sanad guurada 57 ee xuska asaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waad salaamantiin mudanayaasha waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf weyn noo ah inaad nagala soo qayb gashaan munaasabadan waxaa maanta u dabaaldegaynaa 57 guuradii ka soo wareegtay asaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa maalin taariikhi ah dalka Soomaaliyeed qiimo weyn iyo qadarin iyo ugu fadhiya ujeedada abuurista ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laga lahaa waxay ahayd in la helo awood ilaalisa difaaca qarannimada iyo muwaadinimada in la helo awood ilaalisa qarannimada difaacdana qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ugu horeyn waxaan salaan iyo hambalyo ku aadan munaasabadan xuska sanad guurada 57 guurada asaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u diraya dhammaan ciidamada qalabka sida gudo iyo dibaddaba meel kasta oo ay joogaan gaar ahaan kuwa ku sugan furimaha dagaalka ee gudanaya waajibaadkooda qaran sidoo kale waxaan halkan uga ducaynayaa kuwa ku dhintay ku dhaawacmay iyo kuwa ku dhintayba ee naftooda qaaliga ahayd ku waayey difaaca dalka meel kasta oo ay joogaan waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu siiyo caafimaad
jannadana ka waraabiyo kuwa ku dhintay intaa kadib waxaan halkaan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha qaranka ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre iyo golihiisa wasiirada guddoonka iyo dhammaan xildhibaanada labada gola ee baarlamaanka ay leedahay ummadda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka jubbaland dhammaan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo abbaanduulihiisa madaxda dowladda gobollada jubbaland iyo labadiisa ku-xigeen madaxweynaha dowladda goboleedka jubbaland iyo labadiisa ku-xigeen dhammaan aan hambalyo u diraynaa mudane madaxa hay-adaha kala duwan ee qaranka waxaan si gaar ah hambalyo ugu dirayaa guud ahaan ciidamada qalabka sida saraakiil xigeen dabley ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed xaasaskooda noocyada kala duwan ee ciidamada jubbaland iyo ciidamada nabad ilaalinta midowda africa ee amisom ee halkaan nala joogo wiilashooda iyo madaxdoodaba difaacana wala jiraan waxaan idin mahadcelinaynaa u soo jeedinaynaa meel munaasabadan aad nagala soo qayb gasheen aad u qaaliga ah oo sanad guuradii 57 ka soo wareegtay as-aaskii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku aadan 12 abriil 1960 xilligaas oo ay soomaaliya xornimada ka qaadatay gumaysigii ingiriiska iyo talyaaniga waxaan mahadnaq iyo ammaan weyn u soo jeedinaya madaxweynaha jubbaland oo gacan weyn naga siiyey qabsoomidda munaasabadda abriil taariikhda kooban oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya annagoo halkan aanan ku soo koobi karin waxaan in yar ka hormarayaa waxyaabo yaryar oo taariikhda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa la as-aasay 12 abriil 1960 waxaa lagu as-aasay ciidan dhan 2000 oo askari oo loogu magac daray cali boobaaye ayaa ugu horreeyey kaasoo hogaaminayay taliyihii ugu horreeyey ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed yeesho allah u naxariistee jenaraal daa'uud cabdulle xirsi ku-xigeenkiisa suna wuxuu ahaa allah u naxariistee jenaraal maxamed siyaad barre oo ahaa sarkaalkii barbaariyey gaarsiiyeyna inay ka mid noqdaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwa ugu awood badan afrika ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu ka kooban yahay 4 ciidan oo kala ah ciidanka lugta ciidanka cirka ciidanka badda iyo ciidanka dhulka ciidanka difaaca cirka waxaa ciidamadii ugu horreeyey ee soomaaliya dhisato laga kala keenay labadii qaybood ee ka xoroobay ingiriiska iyo talyaaniga british somaliland iyo italian somalia oo ahaa koonfur iyo waqooyi waxaa laga keenay somaliland scout ciidankii la dhihi jiray iyo koonfurta oo laga keenay somali police force model group ciidankii la dhihi jiray ciidamadaas oo isku darkoodii ahaa 5,000 oo askari noqday ciidankii ugu horreeyey ee isku dhaf ah ee soomaaliya yeelato loo bixiyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wixii waqtigaasi ka dambeeyey waxaa la abaabulay waana la casriyeeyey isagoo si xad dhaaf ah u kobcay muddo yar kadib wuxuu noqday ciidamada ugu awooda badan afrika ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa hogaamiya madaxweynaha waddanka waxaana mas-uuliyiin ammaanka jiritaanka iyo
wuxuuna mas-uulkiisa yahay ammaanka iyo jiritaanka iyo xornimada iyo sharafta iyo kala dambeynta waddanka. laga soo bilaabo xilligaas ilaa maanta ciidanka xoogga Soomaaliyeed wuxuu heegan u yahay difaaca qaranka iyo xuduudihiisa, wuxuuna u horeeyaa naftiisa qaaliga ah si uu u difaaco dalka Soomaaliyeed bad iyo bari iyo cirba, kana difaaco cadow kasta oo isku daya in uu ku soo xadgudbo isagoo si hagar la'aan ah ugu huraya naftooda qaaliga ah. ciidanka xoogga Soomaaliyeed waxaa lagu aaminay oo uu difaaca calanka iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed, iyadoo xubin kasta oo ciidanka ka tirsan xoogga Soomaaliyeed mar kasta uu ku soo biiro ciidanka lagu dhaarinayo inuu difaaco dalkiisa una huro naftiisa. xubin kastoo ka mid ah ciidanka xoogga Soomaaliyeed waxaa lagu maamuusay inuu xirto calaamadda ka samaysan calanka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed. waxaa waajib askari kasta oo Soomaaliyeed inuu xirto ama generaal ha noqdo ama dable inuu labisnaado astaanta calanka Soomaaliyeed, inuu xirto isteelaha ilaa garabka inuu ku xirto. qaab dhismeedka ciidanka xoogga Soomaaliyeed wuxuu u dhisan yahay kuwaas oo kala ah qeybo iyo gaasas iyo guutooyin iyo saldhigyo madax bannaan. waxaana la dhihi jiray ciidanka qaybta 21aad, qaybta 26aad, qaybta 54aad, qaybta 60aad, qaybta 57aad. magacyadaas oo ah magacyo taariikhi ah oo uu qaranka Soomaaliyeed leeyahay. waxaas jira saldhigyo kuwaas oo kala ah saldhigga 43aad, 46aad, 48aad iyo guutooyin iyo gaasas madax bannaan. ciidanka xoogga Soomaaliyeed waxay tiradiisu gaartay in ka badan 300 oo kun. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu noqday ciidanka saddexaad ee ugu awoodda badan Afrika, marka laga reebo dalalka Nigeria iyo Masar. waxay ku guuleysteen howlgallo muhiim ah. waxay diyaar u yihiin gudashada waajibaadkooda qaran, waxayna naftooda u hurayaan difaaca dalkooda hooyo mar walba uu tan ilaalinayo qarannimada Soomaaliyeed, ciidda, calanka iyo diinta iyo dadka Soomaaliyeed dhammaanba. inkasta oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aanu qaadan mushaaro joogto ah isla markaana aanay helin daryeelkii loo baahnaa daruufo jiro awgeed, haddana wuxuu askari kasta oo Soomaaliyeed ku qanacsan yahay in uu dadka iyo dalka ugu shaqeeyo daruuftaasi adag, isagoo aaminsan in uu difaacayo dalkiisa. madaxweyne ku-xigeenka, gudoomiyaha baarlamaanka, xildhibaanada labada gole, gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka, saraakiisha, walaalayaal waxaan ku salaamayaa dhammaantiin ka qaybgalayaasha iyo saraakiisha AMISOM iyo qof kasta oo xafladan joogo. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. runtii waqti kulul baa lagu jiraa. taariikhda xoogga dalka Soomaaliyeed lagama sheekayn karo, waxayna tahay xilli ballaaran. waxaan rabaa marka hore inaan u hambaliyeeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, saraakiisha, sarreeyayaasha iyo dhammaan talisyada xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhan.
sanad guurada konton iyo toddobaad oo ka soo wareegtay aasaaska xoogga dalka soomaaliyeed walaalayaal maantay waxaan joognaa xilli wanaagsan oo haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna waafajiyo aan ku faani karno inaan haysanno dhallinyaradii soomaaliyeed oo shalayta la carbiyey inaan maanta heli karno inaan macallimiinta heli karno inaan dugsiyada heli karno inaan abaabulkii ummadda soomaaliyeed heli karno shalay ciidankeenna meeshii laga sheekaynaya wuxuu u tegey ma ahayn ciidan ka yimid ajanabiya waxay ahayn ciidan ka yimid dhallinyarada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed oo rag iyo dumar waxayna heleen hoggaamin iyo qaab iyo nidaam iyo meelo lagu tababaro walaalayaal maantay waan haysanaa dhallinyaradii waan haysanaa dugsiyadii waan haysanaa dowladdii waan haysanaa saraakiishii waxaa loo baahan yahay marka inaanu isku tashanno dalkeennana ku tashanno qodobka labaad waxaan u mahad celinayaa taliyaha qaybta iyo saraakiishiisa oo runtii abaabulkan iyo xafladdan quruxda badan sameeyey waxaan kaloo u mahad celinayaa maamul goboleedka jubbaland oo hormuudka uu ka yahay madaxweynaha jubbaland oo ayna suuro gasheen arrintan hadduusan asagu gacan ka geysanin hadday tahay ururinta ciidankan iyo xafladda iyo qaabka gacan ku-hayntiisa iyo la socodka dhaqdhaqaaqiisa ayna suuro gasheen haddii asaga uusan gacan ka geysanin waxaan ku soo ururinayaa oon ku soo koobayaa annagu waxaan soo gaarnay ayadoo ninka tuutaha qabo carruurta iyo gabdhaha ay daba socdaan jacaylka loo qabo waxaan soo gaarnay ayagoo gabdhaha soomaaliyeed ay yidhaahdaan xidiglaan guursani ama weligayba waan iska joogi waxaan soo gaarnay ayada oo ninka yuniformka magaalada markuu dhex marahayo carruurta iyo haweenka iyo dhallinyarada ay iska daba socdaan tuutaha ilaa iyo meesha u socdo intuu ka tegahayo waxaa la rabaa ciidankeenna inaan sidii ku celinno waxaa la rabaa inaanu gobonnimadii iyo sharaftii soomaaliyeed aanu soo celinno haddii dhallinyarada soomaaliyeed iyo xoogga dalka soomaaliyeed la yidhaah maantay wax badan baa noo qabsoomay maantay meesha aan ka hadlayno waa kismaayo waxaanu ka hadlaynaa baydhabo waxaanu ka hadlaynaa gobollada dhexe waxaanu ka hadlaynaa puntland waxaanu ka hadlaynaa hirshabeelle taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed markaan ahaa xabadda 15 may ka soo dhacdo ayaa waxay dadka ku dhaawacaysay madaxtooyada dhexdeeda iyo dekedaba maanta marka xaggeen maraynaa waxbaa la qaban waayey iyo in laisdhaliilo wax macnaa ma samaynayso laakiin waxaa loo baahan yahay in horay loo socdo in aanu barbaarinno gobonnimada iyo ciidankeenna loona helo nolol wanaagsan ciidanka in loo helo qodobka iigu dambeeyo waxa weeye haddii geed uu dumo geed weyn hadduu dumo geedkaas wax walbaa galo waxaa galo qoratada waxaa galo halaqa waxaa galo quraanjada waxaa galo quuruwaalaha waxaa galo abeesada dalkeenna abeesooyinka soo galay wax yar baa ku haray wax yar ayaa ku haray abeesooyinkaas marka inaan inta hartay ka saarno dalka diyaar ma u tihiin war diyaar ma u tihiin war haada waa yarta war diyaar ma u tihiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan ku soo koobayaa haddii beer la qardeeyo oo la abuuro
oo la falo oo la dhowro oo masagadii ayadoy ku taallo aad u timaaddo ma waxaad dhihi beerta yaa la joogo mise waad iska goosani war yaa la joogo soo la dhihi maa dowladda federaalka soomaaliyeedna intaasaan farayaa beerta yaa la jooga in la yidhaahdo weeye waa mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada golaha baarlamaanka saraakiisha ciidamada qalabka sida amisom iyo kuwa soomaaliya kuwa jubbaland dadweynaha sharafta leh ururada bulshada rayadka haweenka iyo dhallinyarada saxaafadda dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan jeclahay sida taliyaha ciidanka qaybta 43aad uu u hambaliyeeyey inaan la xigsado ama la wadaago inaan hambalyaana fursadan kaga faa'iideysto oo u diro saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan qaybta 43aad iyo xaasaskooda madaxweyne mudanayaal waxaa runtii inoo kulligeen sharaf qiimo badan inaan ka soo qayb galno munaasabadan 2 Abriil ama 12 Abriil oo 57 jirsatay sida caadiga ah adduunka ama wadamada dawladaha jira dawlad kasta waxay leedahay maalmo munaasabada ah oo la tixgeliyo maalmo la qiimeeyo maalmo la sharfo maalmo taariikh u ah sidaas oo kale marka 2 Abriil ama 12 Abriil waxay noo tahay waxay noogu fadhidaa qiimo aad u weyn nasiib darro waqtiga hal koobaa la yidhi sida uu codsaday madaxweyne ku-xigeenka iyo taliyaha ciidanka martida loo yahay ma koobi karno saay tahay haddana waa laga maarmaan in xusid la sameeyo qof kastoo kacayba inuu wax ka taabto macallinka iga horreeyay oo macallinku daada waa tagay soo uu yaan la dhargi buur waxba yaan la cunin haddii xusidda marka aan marno maalintan sida taariikhda dheer uga sheekeeyey taliyaha ciidanku maalmaha go-aan oo munaasabooyin kale ka mid tahay ciidankan xoogga dalka oo 54 jirsadayna inkastoo habac weyn oo xilligii burburka uu yimid oo nasiib darridii Soomaaliya ku dhacday uu qayb ka yahay haddana waxaa laga maarmaana in la xuso oo dhalinyarada cusub ee hadda tuutaha qabta ee hortanada fadhida ee sharafta leh loo sheego oo wax looga taabto sida uu ahaan jiray iyo sida uu yahay iyo waxa laga doonayaa hadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ma aha oo kaliya waajibaadka ciidanku inuu cadow ilaaliyo iyo inuu difaaco dalka oo kaliya waa qodobka koowaad laakiin maxaa u weheliya waxa u weheliya qodobo badan oo inaa koobi karin wuxuu qaybo waaweyn ka qaataa ama ka qaadan jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xilligii awoodda uu lahaa horumarinta dalka ayuu qayb weyn ka qaadan jiray wuxuu qayb weyn ka qaadan jiray fidinta waxbarashada sida ololihii waxbarashada oo meelaha ugu muhiimsan oo laga fidinayo uu qayb ka lahaan jiray wuxuu qayb ka qaadan jiray sida bacad celinta oo qaybaha ugu waaweyn ee maalmaha munaasabadka lagu sameyn jiray wuxuu ka qayb ka qaadan jiray xilliga abaartii daba dheer oo kale dadku in maxay ahayd macawush haysay kabidiisii iyo soo raridiisii iyo maxay ahayd meelintiisii ciidamadii xoogga ayay ahaayeen kuwii soo raray ee dejintiina iyo meelaha intoo dhan maxay ahayd ku xanaanayn jiray marka askariga waa inuu ogaadaa ama sargaal kasta waa inuu ogaadaa waajibaadkiisu inuusan ahayn difaaca kaliya ee inuu yiraahdo ilaalinta hantida qaranka ilaalinta sharafta dalka iyo ilaalinta muwaadinka ama kuwa danyarta ha noqdeen kuwa laxaad kale ha noqdeen yani waajibaadka uu leeyahay ma aha oo kaliya midka qoriga ah waa weeye midda ilaalinta sharafta iyo maxay ahayd haybadda iyo sumcadda iyo adeegidda danyarta Soomaaliyeed iyo maxay ahayd waa in ciidanku waliba way ka doo ciidamada qaranka uu ka takoornaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qof kasta wuxuu isu buusi jiray xilliyada adag ee nabadgelyada ama ammaanku xun yahay qofka xoogga markuu arko qof xoogga markuu arko xaqiisu uu carari jiray marka yeena dhicin inay ka cararaan inay idin dhibsadaan
in maxay ahayd uu la yimaado qof ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan jeclahay inaan maadaama waqtigu ciriiri yahay aan soo ururiyo marnaba waxaan jeclahay inaan runtii u mahad celiyo saraakiishii uu hogaaminayay taliyaha ciidanku xafladda siday u agaasimeen iyo siday u dhigeen iyo ciidanka naftiisa oo bilan oo si nidaam iyo hab leh oo qursan loo sameeyey aad bay u mahadsan yihiin waxaa kaloo u mahad celinayaa inkastuu ka tegey taliyaha ciidanku Uusan Xuseen saraakiishii iyo guddiyadii diyaarisay ciidankan oo uu ka mid ahaa Jeneraal Mahdi iyo Ugaadka Sayraar iyo Dhinaca Ismaaciil iyo ay ka mid ahaayeen oo xusay ciidankani wuxuu ka duwan yahay hadda ciidamada ama qaybaha kale ee Soomaaliya lagama helo wuu isku dhafan yahay qabiil ma aha mise waa beenta Ismaaciil waa ciidan Soomaaliyeed waa ciidan la isku wada dhafay wali waxaan oran karaa beelaha maxay ahayd 4.5 markii la yiraahdaa foorka la siyaa ugu badan marka ciidankani waxaan kolay maxay ahayd waxaan jeclahay inaan mahad u celiyo guddigii diyaarisay iyo qorshayaashii lagu sameeyay iyo inuu yahay ciidan Soomaaliyeed oo lagu faani karo oo aan ahayn ciidan qabiila waxaan ku soo ururinayaa Jeneraal Ismaaciil oo maal doodishadii hore intaan ku kaga qayb galay ma rabna inaan doodisho badan halkaan ku qayb galno ciidanku wuxuu tuutaa uu sitaa in bu'aaliya la taga jilib iyo meelihii loogu talagalay marka waxaa laga maarmaana in ragga xoogga Afriislaantii waxay tiri ninka bawdyada alihi gabadhayda kaba dhali waayeen marka ciidanka intaa leegi isagoo hortanada fadhiyo oo qalabaysan iyo teknikadiisa iyo maxay gaadiidkiisa iyo saaxiibada Amisom oo ku daaban haddaba ila jilib iyo bu'aala qaban waayeen marka arrinta nafteeda waxaan soo jeedinaynaa inaan munaasabada halkaan aan ku qabanin oo sida ugu haboon aynu ku tagno afarta wiil ee dhuumanaysa ee ku jirta xasaska dadkeena dhibay oo maxay ahayd mushkilaynaya iyo kuwa qaraxyada meelaha la wareegaya waa inaan godkooda ugu tagno arrinta ayadana waxaan ka sugaynaa inay hormood noogu noqdaan ciidanka maxay ahayd qaybta 43aad aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa jeclaan lahaa inaan sii wado laakiin waxaan dareemayaa in waqtigu ciriiri yahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan maqlay ninbaa waxaa la yidhi ragga la kufsaday markaasuu ragga maa la kufsaday haa tooribu intuu halkaa iska saaray yuu caloosha bannaanka iska soo dhigay aniga horta tii oo kale iga joogtaa wax yar 3 qodob uma ka sheegaya ciidankan isteelada wata ee saraakiishiisa kuwa sarsare iyo kuwa hoosaba sidan u dadaalay madaxweynaha ka soo bilow wasiirada ama kuwa ku xigsi federaalka ama ku xigsi kuwan Jubbaland waxaan ilaahay ka baryayaa ciidankaas oo baahan oo uu wax u qaban karo oo uu baahida ka biin karo oo hadduu rabo uu la baahnaan karo ninka ama madaxweyne ama wasiir ama wixiya oo gurigiisa ku raaxaysta inuusan noolaaninba taas ilaahay baan ka baryayaa madaxweynaha laga soo bilaabo madaxweynaha federaalka laga soo bilaabo kuwa madaxda halkan jooga ciidankaas waxaan u soo jeedinayaa ciidankaas in hadduu baahdanaado lala baahnaado baahidu ma qabanayso hadduu dhergo ninka madaxda Ismaaciil waxaan ka codsanayaa ciidankan oo baahan ha dhergi la baaho la seexo ciidanka markii adoo baahan aad la seexato asagana baahida wuu aqbalaya laakiin inay madaxdana si fiican u dhisu seexato ciidankana uu baahnaado ciidan ku noqon mayno waxaan jecelnahay sanadkan sanadkiisa ninkii ilaahay gaarsiiyo ciidankan laban laabkiisa iyo saddex laabkiisa iyo mooraalkan ka weyn inaan helno yaan ilaahay ka rajaynaynaa saraakiishana waxaan ka codsanaynaa ayagoo daacada
inay saa ciidanka ku hoggaamiyaan waxaan kaloo ciidanka u soo jeedinayaa sharafta la sheegay away sharaftii qiimaha badnay ee la yidhi laba dal mooyeene waxaan ahayn dalka ugu awood badan away waxaa burburiya iska ilaaliya idinkana waxaan leeyahay ciidanka ninkii qabiil la dhex fadhiya ciidanka ninkii qorshe kale la dhex fadhiya oon ciidannimo ahayn ninkii wax kale ka dhex maleega ood ciidan ahaan oogu dhex jirin asagana waxaan leeyahay ilaahay suu raba ha yeelo waxaan leeyahay idinkana niyad fiican yeesha madaxduna niyad fiican oo idinla shaqaysato ha yeelato aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin wixii madaxda salaanoon gafayna haddaan soo wada bilaabi kulli haddii ilaahay kulli waa idin wada salaamay madaxweyne waa idin wada salaamay waxaan doonayaa ciidankan iyo kan jubbalandba intaan gacanta ku hayno inay maanta loo ballan qaado wax runa oo waxa loo ballan qaadi karo muxuu yahay inii la yidhaahdo waxaan idiin ballan qaadaynaa haddaad baahataan inaan baahanno haddaad dheragtaanna inaan dheragno oo gaar loo kala shaqaysanno oo madaxda guryo qurquruxsan seexanno asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بدنا يا هذا الكي ما بدنا ساكا ها waxaan rabaa inaan saddex qodob kaliya ka hadlo salaan dhammaan horta waan salaamaya ka soo qaybgalayaasha ugu sarreeya madaxweynaha ku-xigeenka iyo dhammaan labada gole ee dowlad goboleedka Jubbaland saraakiisha ciidamada amisom iyo kuwa federaalka iyo kuwa Jubbaland dhammaan iyo ururada ee bulshada kala duwan maamulka degmada hawiyooyinka saxaafadda dhammaan iyo wixii kale oo ka tagay waa idin salaamay waxaan ku salaamay salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadal badan uma istaagin qoraxdan way kulushahay waqtigana waa ciriiri waxaan rabaa saddex qodob kaliya inaan ka hadlo xafladii la yiri 12 Abriil oo ay ka soo wareegtay 57 sano oo aasaaskii ciidamada qaranka Soomaaliya dhammaan horta waxaan ugu hambalyeeynayaa ciidanka qalabka sida oo Soomaaliyeed dhamaantii hambalyaan idin leenahay intaas kadib waxaan rabaa inaan laba baaq jeediyo hadda waxaan u istaagay halkan baaq waxaan rabaa inaan u jeediyo dowladda federaalka oo ugu horeeyo madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo ilaahay uu xilka hadda ummadda Soomaaliyeed asaga uu dusha ka saaray mudana madaxweyne iyo taliyaha xoogga ciidanka Soomaaliya waxaan idinku baaqayaa oo idinka codsanayaa anoo ku hadlaya afka baarlamaanka metelana ummadda Jubbaland oo ay ciidankan federaalka ay maanta ku dhex nool yihiin halkan waxa ay ku sugan yihiin baan aad u ogahay marka mudana madaxweyne dowladda federaalka waxaan u jeedinayaa ciidankan Soomaaliyeed halkan aan uga aasaaskiisa sidoo ku bilowday oo sida hadda Generaal Cabdi Mahdi uu ka dhawaajinay ciidan Soomaaliyeed runtii oo ciidan isku dhaf ah oo aan u maleynayo Soomaaliya inteeda kale inuu ka jirin inaan la dayacin dayacaadan in laga qaado madaxweyne waxaan ka codsanayaa ama aan ku sheegayaa ciidankan in sidaan loo dhaamo waa wiilil Soomaaliyeed waa wiilil u baahan in la garab qabto waa muraayadiisa ummadda Soomaaliyeed adaa ummadda Soomaaliyeed madaxweyne waa madaxweyne waxaan kuuga baaqayaa in aad ciidankan horteeda fadhiya meeshaan cidlada ah 3 sano ku gaaray oo aan haysanin daryeel hubkii u baahnaa dayacitirkiisii aan qabin in la soo hubeeyo mushaarkoodana la siiyo hooshii loogu talagalo loo egmadayna la geliyo madaxweyne farmaajintaas waa baaq waxaa kaloo baaq kale u soo jeedinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo runtii aan islaahay aad iyo aad buu dadaal badan u sameeyay ma suuro galeen haddii madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Muuse gacanta ku qabanin ciidankan ururintiisa iyo isku dubrididiisa iyo gacan ku hayntiisa asagana waxaan leeyahay madaxweyne waxa baad bilowday wili adiga marti lagu yahay muwaadin Soomaaliyeed baa tahay madaxweynaha Jubbaland baa tahay ciidankan waa dhibin yihiin iyo ciidanka Jubbaland ba
ciidamada in ilgaara lagu hayo haddii ciidanku hagaagsanaado dalka waxaan isleeyahay codowga na hortaagan codow xoog badan ma aha hadda soomaaliya xuduudaheeda difaac badan uma baahno wiilashan xiiraansan ee dadka aan waxmagaradka ay caraabiyeen oo dadkoodii iyo hooyooyinkoodii iyo abtiyaashooda ay ku direen oo ay yidhaahdeen waa gaalo oo aan waxba kala ogeyn oo hadda naflcaariga ah in waddanka lagu xirayo aad iyo aad bay u sahlan tahay marka in aad sare kacdaan ciidamada geesiyaasha maxaan dhahay Amazon oo runtii wax badan iyaga noo qabtayna iyagana waxaan leeyahay fadhigii meeshaan Kismaayo waxaa la fadhiyaan umaleyn 6 sano fadhi kale adinkan waxaan leeyahay idinma harin adinkan waxaan idin leeyahay isdiyaariya ummaddu way dhiban tahay daacuun baa haya looma gargaari karo abaaraha ay looma gargaari karo dad aan u nixin baa haya yaa hortaagan marka dhammaan waxaan leeyahay ciidamada Amazon iyo madaxweynaha dawladda federaalka iyo madaxweynaha Jubbaland iyo madaxda Amazon waxaan ugu baaqayaa ummadan Jubbaland sida ay hadda ku jirto runtii kuma jiri karto mas'uul sida loogama ahaan karo marka waxaan idinka codsanaynaa maadaama aan maanta u fadhino xus ciidankana loo sameeyay dalka difaaciisa masaakiinta inay u gargaaraan marka fadhi ma yaalo dadkii waa baaba'aya codow baa hortaagan codowgii inaad ka hor qaadaan waxaan rabaa saraakiisha haddan halka joogta in ay ballan qaado in ay diyaar garoobayaan ummaddan aan u sheegno in ay ciidamadii diyaar yihiin diyaar ma loo yahay diyaar ma u tihiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مسؤولين تكسو قيب قشي هير فيدرال يهير دولة قولة جبلان مدحة عيد نمضى أمي صوم كل وحن لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آديات بانا وحماي أنا كمي الله سامبادنا إذن كورا بديدي ورقا بنا يورتي مكاس الله اللي عنيك مالي كبندية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لوري وكذا كابلي عيدك وحالي رالي هذا بعد بفردين أنه نهول بان جوغنا سادرتين وحيابا جيس النبدا اللي نقول شيء انت هذا نكينا كمدا دلغات قاعد قرعه وليدين انا 10 دقيقه بدي كرنو 10 دقيقة ما يجي عن فدي مرة دلقات كاس أو على دنقوا عماناي ما طلع بتوان قبل وحدي قدام تمر كور رئيسه سلام أمبليو بوجادين أنا كذا ورو مدحوينا دولة قبل جبلان مدن أحمد محمد سلام ويصوم فري أمبليو مناسبة لبي توان قبل طلبات وحن ربائنا هل كايدين كشيء xoogga dalka ma fiican yahay muxuu yahay ma loo baahan yahay loo baahna miya maanta ma la isweydiinayo xoogga dalka Soomaaliya waa loo baahan yahay annaga waan isfaraynaa inaan ka qayb galno aas-aaska iyo taageeridda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dowladda federaalkana waxaan ugu baaqaynaa aan ka codsanaynaa inay u howlgasho dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhinac walba laga qalabiyay ciidan ajnabi waa ku taakulay karaa laakiin dalkaaga cadowkaaga ma difaaci karo bulshadaada amnigu ma sugi karo xuduudku ma difaaci karo ciidan ajnabi in laysku hadlay maaha ilaa waqti uu kaalmay karaa ilaa waqti uu maxaan ku rahdaa ku caawi karaa laakiin nimanka geesiyaasha ah ee la rabo dadkooda iyo dalkooda inay difaacaan waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana leeyahay heer kasta oo mas'uuliyadda haysa ee Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in laga qayb galo dib u dhiska dib u qalabaynta dib u taakulaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed annaga daa Jubbaland nahay gaar ahaan qaybta 43aad waxaan u haysanaa in saldhiggeedu Jubbaland yahay magaalada madaxda gobolka Kismaayo waan sahal saarnay General Cabdi Mahdi Aba sheego
jenaraal cabdi mahad wuxuu yidhi abaabulka annaga isku dhafka ciidankaani wax badan baa ka soo marnay meelaha kalena waxaa leeyahay nugu daydaan kamana aamusnin waxba luul yeedhin wax ballanqaad anoo bannaanka soo dhigin baa horena u ballan qaaday jenaraal saxadiid baa le hadda maka aamusnin maka aamusannahay hadda ciidanka maka aamusannahay waxaad u baahano ama waxa soo dalbato wixii kala keenso ma qabanno haddana wax labalaabeynaa ciidanka waxaan leenahay wax alla wixii karaankeena waa qabanaynaa waana labalaabeynaa nagu tasada annaga hore ay kugu tasanay hambalyo qoraxdaa ii muuqataa khudbadeed qoraxdaa ii muuqataa raalli ahaada madaxda kaloo fadhida odayaasha dhaqanka haweenka wasiirada waxaan u nimi halkaan inaan idin ballan qaadno wixii karaankeen ciidankan in loo qabanhayo annagoo mar walboona daba taagan yahay ama dhabarkeenna oo taagan yahay wixii wanaag aan qabanno odayga baa dhabarkeenna taagan madaxweynaha dhabarkeenna taagan baahdiin waa gaarsiinaynaa horeyn waa u qabanayna haddana waa qabanaynaa waxaanan leeyahay hambalyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed annaga dareer jubbaland waa taageeraynaa waana soo dhaweynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu